agaasimihii hore hay-adda nisa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa ku eedeeyay agaasimaha cusub hay-adda nisa Mahad Salaad inuu xiriir weyn la leeyahay al-shabaab isla markaana qayb ka ahaa weeraro iyo shirqoollo saraakiil badan lagu qaarijiyay. Fahad Yaasiin wuxuu sheegay magacaabidda Mahad Salaad inay ahayd qalad weyn oo uu galay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, isagoo tilmaamay inay ka dhigan tahay in xogtii amniga dalka loo gacan geliyay shabaab. Waa wax laga naxo ninkan markii loo magacaabay nisa madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud waxaan u qoray warqad inuusan Mahad Salaad u dhiibin xilkaas, balse si saaxiibtinimo ah ayuu ugu dhiibtay xilkaas, ayuu yiri Fahad Yaasiin. Fahad oo ka hadlayay arrimaha sirdoonku waxa uu sheegay inuu hayo cadeymo ku saabsan in Mahad Salaad uu ka mid yahay dadka shabaabka kala shaqeeya inay Muqdisho qaraxyo soo geliyaan iyo fududeynta goobaha la beegsanayo. Waxyaabaha uu Fahad ku eedeeyay Mahad Salaad waxaa ka mid ahaa inuu isku dayay inuu dilo mid ka mid ah ra'iisul wasaarayaashii dalka soo maray, isagoo ka gaabsaday in magaciisa uu carabaabo. Sidoo kale Fahad Yaasiin ayaa waxa uu soo qaaday kiis kale oo ah in mar labaad aqalka madaxweynaha oo shir ka furi lahaa iskool booliisiya Mahad Salaad wuxuu qorsheeyay shabaab inay la beegsadaan 2 gaari oo qarax ah, waxaana kala shaqeeyay Mahad Karatay ayuu tilmaamay. Fahad Yaasiin wuxuu sidoo kale eediisa ku sheegay Mahad Salaad inuu wax ka abaabulay dilkii taliyihii nisa ee magaalada Samareeba Qooje Yare iyo qaraxii dhacay 18 Diseembar sanadii 2020 oo lagu dilay taliyihii ciidanka militariga qaybta 12aad Qooje Dagaari, kaasi oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo iyo taliyihii Danab iyo saraakiil kale. Fahad Yaasiin wuxuu sheegay iyadoo nisa ay og tahay arrimaha oo idil haddana aysan awoodin inay Mahad Salaad tallaabo ka qaado, isagoo sheegay inuu isku ilaalinayay xasaanadda xildhibaannimo. Wuxuuse hadda ku baaqay in la xisaabtamo, wuxuuna sheegay inuu diyaar u yahay inuu soo bandhigo cadeymihiisa haddii loo baahdo. Fahad Yaasiin ayaa sheegay hadda in Mahad Salaad uu yahay shakhsi caadi ah oo hay-adda nisa agaasimo ka ah isla markaana la maxkamadeyn karo, balse markii hore waxa uu tilmaamay inuu ahaa xildhibaan xasaanad leh kaasi aan cidna ku dhicin inay wax ka sheegto arrimihiisa qaaska ah. Dhinaca kale ilaa hadda ma jiro jawaab ka soo baxday dhanka Mahad Salaad, iyadoo sidoo kale Fahad Yaasiin horey uu u sheegay in ay dilka Ikraan Tahliil ka dambeeyeen wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo wasiirka xogeenka wasaaradda rafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala. ilaa hadda saddexdaasi shakhsi kamaysan hadlin arrimaha uu Fahad Yaasiin uu ka dhawaajiyay xilligaana. Fahad Yaasiin ayaa hadda ah nin aan xilhayn isla markaana dibajoog ka ah dowladda iminka talada haysa. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa caawa xaflad casho sharaf ah ku marti qaaday xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, taas oo ka dhacaysa xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya. ila wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in madaxweynuhu uu dhici karto inuu fagaare uga dhawaaqo magacaabidda ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya munaasabadda caawa ama munaasabado kale kahor intaan la gaarin 15 bishan ayaa loo badinayaa inay ka dhacdo magacaabista. Kahor intaan la gaarin 15 bishan ayaa loo badinayaa inuu ku dhawaaqo magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub. madaxweynayaashii dalka soo maray ayaa hore u soo saari jiray wareegtooyin ay ku magacaabi jireen ra'iisul wasaaraha ama waxaa shaacin jiray afhayeenka madaxtooyada oo akhrin jiray wareegtada magacaabista, balse Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la tilmaamay in qaab ka duwan qaabkaasi oo xaflad fagaare ah oo ka dhacaysa xarunta Villa Soomaaliya uga dhawaaqi doono cidda noqonaysa wasiirka koobaad. inkastoo dastuurka uusan ku qorneen in madaxweynaha uu muddo 30 cisho gudahood ku soo magacaabo, haddana dhaqan soo jireen ah iyo caado sunno ah iyadoo dhaxdii qarameedkii lagu soo dhisay dowladdii ku meel gaarkeedii Mbagaati uu dhigayay in madaxweynaha 30 cisho gudahood ra'iisul wasaare ku soo magacaabo. ilaa maalintaasna waxaa jirtay in madaxweyne kasta xilka qabta uu soo magacaabi jiray muddo ku siman 30 cisho gudahood cidda uu u dooranayo ra'iisul wasaaraha dalka. xafiiska madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa iminka buux dhaafiyay xubno xildoon ah oo isugu jira kuwa siyaasiyiin cusub ah iyo qaar kale hore xilal uga soo qabtay dowladihii dalka soo maray, waxaana loo badinayaa in ra'iisul wasaaraha cusub oo ka imaan doono maamulada Jubbaland iyo Puntland qof ay wataan, inkastoo ilaa hadda la ogeyn halka ay u shameel u dhacday, maadaama labada maamul goboleed ay hore u ahaayeen kuwa saaxiibo isku dhow ah, balse dadka waxay isweydiinayaan Puntland iyo Jubbaland hogaamiyaashooda Dani iyo Axmed Madoobe ma isku